naxay والله بالله تلاون وحيدين ثانك يو wallahi waan naxay والله وانا والله اعوذ بالله بهذا laga sheekeynay waxa baan soo galay thank you my brother samurida thank you muxuudin ka dhiga Thank you محيدي haya thank you so much shabeelkii Faadimo sheegayso isoo dhaxgalay baan Faadimo ma dhamaystirin mise waan dhameeyaa ku soco ma gasho waan haya dhamaynayaa call baa igu jira 1 minute ay ku soco dhamee waxa dhacday maxaad dhamayn shakiiray tani dhamaan mayso ilaa ay bari subaxe ku saca waxa dhacday halkaa markay marayso ayaa aabahay baan ka tuuray waxaan ku iri ha cunin wuxuu igu yiri waayo maxaanan u cunayn waxaan ku iri ma kuu sheegaa waxaanad u cunay bahal baa ku jira cuntadaan ku kariyey oo muxuu ahaa bahalka noocaas oo maxaad ugu karisay waxaan doonayaa awoow inuu dhinto aad bad gashay haya anu markaa ma doonayo aabahay inuu iga dhinto haya haddaanan u sheeginna gaaja haysoo u cunaya haya aabahay waxaan ku iri waxaan doonayay awoow inuu dhinto markaasuu intuu dhigay cuntadii biriyaa markaasaan ku iri awoogay hooyaday buu dilay isagaa ugu talagalay hooyada inuu bahal ka cuno maalin kasta ul buu ila dhacaa maalin kasta uu i dilaa wuxuu dhahaa bahashii baa dhashay tii baa dhashay dirkii bay kasoo jeedaa anigu markaa waxaan rabaa odaygana inuu iska dhinto adigu laakiin aad iga dhimatay ma rabo ha cunin cuntada hadaad bad gashay ku saca cabdilqaadir oo qaar buu halkan kasoo qaatay taan taagaba jabiyey adkaatay haya taan taagaba uu i jabiyey odaygii buu subaxii qaaday dhakhtar buu geeyey umuu sheegin odaygii buu subaxii qaaday dhakhtar buu geeyey odaygii waxaa la yidhi calooshaada intaas oo bakteeriya ku jirta haya maxaanay bakteeriya ugu jirin wixii xayawaan meesha yaalay oo dhan baa calooshiisa ku maqan haya calooshiisa intaasoo bakteeriya baa ku jirta intaasoo dawaa loo soo qoray calooshiisii baa la socodsiiyey odaygii muddaa dhakhtar lagu hayay maalintii dambe uu soo noqday wuxuu igu yiri maalin dambe awowgaa weeye waa oday weyn inka har baa kugu dhacsa haddaan kuu sheegi lahaa soo ma ogid inuu ku habaari lahaa maalin dambe bahalkeen hooyo qadar baa ku dhacday way u qorneyd maalintii xabiya biyo ahayd in bahalkaasi cuno ay halkaa ku geeriyooto laakiin waxba haddii isagu uu dilayna ilaahay uu dhibaateeyena ilaahay baa kala xisaabtamaya adigu waxba marka awowgaa ha dili uu saxsan yahay haya ma rabo soomaaha ma rabtid soomaaha inaan dilo iga kaxee aniga meesha anigii odaygani meesha ma wada joogayno ama iga kaxee ama maalinba bahal baan u karinayaa sun baan siinaya acuudu billaahi min ashaytaan arajiim haya adduunka waxaan ugu necbahay cabdilqaadir waxa saaran odaygaas weeyaan markaan arkaba hooyadii baa iga dhex muuqatay si uu la hadli jiray haya waan ku kaxaynayaa buu yidhi anaa ku diraya ii joog halkaa joog anaa ku diraya markaa waxaa jirta eedaday oo magaalo degan anaa ku diraya buu yidhi halkaa ii joog eedadaa baan kuu geynayaa markaan awowga ladnaado ee uu soo kaco ayaan ku diraya anaa ku kaxaynaya waa ballan halkaa fadhi laakiinse odayga mar dambe waxba hasi cidnana ha u sheegin inaad odaygaad ugu sumaysay wallahi aaba fiican buu ahaa una ku qariyey haa haya haye baan ku idhi waan ka daayay bahaladii aan u karinayey habeenkii markaan garowga u kariyay iguma halleyn jireen aabe wuxuu odhan jiray kaan dhadhamiya markuu sii dhadhamiyo u diri jiray aabihiis ila waa aabihiis isagabe saan anigu aabahay uga naxayay isna uga naxaya masha allah haya xoogaa markaan meesha joogna maalintii dambe i soo kaxeeyey wuxuu i keenay magaaladii nimco naciimo guule thank you abay naciimana samuurada ka dhiga caawa dadka samuurada ku wada sharfa naciimo guuleed aad u mahadsantaa abay haya calaykum assalaam hiba kuwii soo dhawow waan rajeynaya inaad caafimaad qabto waxaa dhacday cabdiqaadir oo waxaa dhacday halkaa markay marayso inuu aabahay soo kaxeeyey tuuluu iiga soo raacay tuuladuu i keenay maryo yaryar iyo kaba yaryar iyo waxbuu ii iibiyey islaantii eedaday oo magaalo weyn degan buu ii keenay islaantii way igu oyday alla hooyadeed u eegkaa alla hooyadeed bay u eeg tahay islaanta markaa ugu miskiinsan weeyaan islaanta marka waxaa la degan caruurteeda guri weyn bay degan tahay caruurteedaa la degan hablo iyo inamaba guriga markaa waxaa degan wiil iyo gabadh la qabo
wiilkana xaaskiisii baa degan gabadhana ninkeedii baa la degan ina laga yaaba Waxa wiil iyo gabadh la qabo. Nin la qabo. waxa hadda Yaa la qabaa ninka. wiil gabadh qaba iyo gabadh nin qaba oo guriga degan islaantu dhashay wiil iyo gabadh xaas ah Haye. Soomaaliga markuu jiiro kala ay ku qarxin Dama rag uba xaas ma noqdaan ilaa hadda khaldan tahay nin xaas ah. waa xaas rag waa xaas Maryam, thank you Maryam thank you for the subscribe. inta maruu ninku miyaanu xaas ahayn soo qora reer comment Ma. Ku socon. deetana waxaa dhacday islaantii markii laga keenay Cabdiqaadir oo islaantii way soo dhaweysay islaantii kareemay ii soo iibisay daruuc shiiday ii soo iibisay qol yar bay keligay ii soo hagaajisay timihii bay ii hagaajisay timihii bay tiraahdaa naa u daba timihii baa lay dabaa markaa 13 sano soo gaadhay timaha u daba oo dhuubanna waan ahay oo soo hooyadeed uga fikiraysay ay hooyaday uga isaan anigu hooyaday uga fikirayay odaygan baas dil isaan u dili lahaa uga fikirayay ayaa waxaan noqday qori qalalan naasharaaba soo shiida khudaar bay ii keentaa aroortii barqadii markay tahay boorash bay ii karisaa quraacda kadib qadadana ka hor casarkii waxay ugu tiraahdaa sharaaba soo shiida caana shaah siiya 14 sano markaan soo gaadhay waxaan noqday tamaandho kashbacday oo xagga iyo xaggaba u raran Naag buuran ma rabo. Ilaa way u culusto oo maqaad qaadi karay oo cuslaata. tamaandho waxaan noqday xagga iyo xaggaba u kashbacday oo caddaatay oo timiintay halkaa ka bilaabeen dhabarka ka degeen Haye. Cabdiqaadirow aanba qurux badnaadee waxaan jeclaaday oo aan bash ku idhi oo yaryadii caashaqa dul dhigtay inankii eedaday dhashay gabadha qabay xaaska ahaa ee guriga degan Yeah. Hadri. inankii xaaska lahaa ee guriga deganaa eedaday dhashay ayaan jeclaaday jacaylku maceeba Samurada hayaay ka dhiga caawa sheekada hayaay adkaati la bedel. Hayaay bay maraysaa sheekada. Acuudu billahi min ash-shaytaan ar-rajiim. Haye gurigii bahal baa soo galay. Ku soco. Cabdiqaadirow inan wuxuu qabaa naag dhuubanoo madow oo wuxuu qabaa iska anigu markaan ka qurux badanahay waxaa jirta qurux waxaa jirta hurudo iyo qurux waxaa jirta jinnile markaan anigu ag joogo dee anigu aan ka qurux badanaho ishu markaba aniga igu dhacayso Haye. gabadh kastaaba meeshay u qurux badan tahay bay qaawisaayo Cabdiqaadir oo timo qurux badan oo dhaadheerna waa lahaayo iyagoo wada fadhiya intaan soo ag fadhiistan timaha saa u feedhaa hortooda ugu feedhaa markaa dee waxaan iska dhigay inuu walaalkay yahay oo aanu dee markii hore aan 13 sano jiray aan dhuubnaa tamaandhada ahaa walaalkay buu ahaayo agtiisa iska fadhiisan jirayo waan la caweyn jirayo sidii un baan iminkana ku weynaaday Hablow ma ogolaan in gabadh kale ninkaaga ku ag jooga timaha kugu ag feedhato ama hadday gadaal qurux badan tahay ay hortiina kaga siiso aqomanay leeyahay aqomanay toosi ma ogolaan walwaaba kuna qaar wana ogolaan la oo inta ma ogolaadin waa qosolka ku soco Cabdiqaadir oo markaan timaha dhamaysteen timaha saa u duubto waxaan haystaa luga yaroo burburan oo cadcad oo qurux badan baa lahaay lugahan geersininkaaga ay sii ku idhaahdaayo lugahan ka hormarsadaa kareemka lugahan kareemka ka hormarsada waa cagaha intaa hoose war hayaay wallahi tani adkaata haye Cabdiqaadirow inankiisaan marna timahayga u horwaday mana lugahayga yara burburan u horwaday ayuu wuxuu sameeyey maalintii dambe igu yiri marka lugaha saas gariimka ugu horumarsan saas xashayso soo eegaya masxashaya sagala why not saas isku duugitaan ma socdo thank you my brother Muhyiddin samurada Muhyiddin ka dhiga the one and only is back samurada ka dhigaysaan Muhyiddin is back thank you my brother another mother aadiyad ku soco saasay isu xasheeyaa saasaan waxaan ku uri kareemka lugahaasaan u marinayaayo saasaan kama qasna annaga igama qasna thank you my brother dee qof inantan marba dhacaysa soo qabsanaysa maxaa ka khaldan abaya dee mar dambe ha dhicin dee waan ku soo qabanaya markii ugu dambeysay waa la duubaya abayo maanta marba dhamaaqaysa
maanta dhanka marada dhaqaaqaysa marda ma baa tuurinde ku soco